السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي kusoo dhawaada horumar mabaqaaga janal maanta halkan waxaan ku haysanaa kackaca aad iyo aad u macaan jukulaato dhexda laga geliyey shaah cadaysan karag shaah waxaan rajeynayaa inaanu si fiican uga wada faa'iidaysan doono insha allah bismillaahi kariim asxaabta iyo cid walba looga faa'iideyn doono wakaas jukulaatadaas ayaa ku jirta maasha allah saas ayuu maasha allah u yahay insha allah balaan isla eegno makoonaadkiisa saa loo sameynayo waxyaabuu ka kooban yahay isla socda wacaan asxaabeey halkan waxaa noogu jira 4 koob oo aad u buuxa oo daqiiqda caadiga nooc fiican ah waxaan halkan ku shubaynaa sonkor iyo hiis ama bixiso iyo binjeer oo milixa waxaanu ku daraynaa insha allah bismillah xabad beeda waxaan ku shubaynaa subde aan soo dhalaaliyey iyo muqaacad saliida oon isku soo dhex walaaqay intaas markaan saa iskugu walaaqno waxaanu ku xashi doonaa caano kulul caano la diiriyey yacni aad u yar diiran yacni kulaylkooda uu yara sareeyo aadna aan u sareyno dee aan karkarin si aanay hiistu kaaga xumaanin ama fixisadu aanay kaaga xumaanin aanan fardiis qabowna ahayn yacni hortaada dee amba dee markaad gacantaada saa ugu shubto dee aad kulaylkooda yara dareemayso ayaan kusoo xashayaa waxa intaa inoo dheer baket yaroo faniila ah amba muqaacad yaroo faniila ah intaasaan isku soo xashaynayo si fiican aan isku soo dhex gelinaynaa insha allah asxaabay waaniga halkaasaan daqiiqdii ku riday maanta dhan halkaasaan ku xashayay ilaa iyo 15 daqiiqo taqriiban waan xashayay bahasha si fiican in loo xashay u baahan tahay daqiiq kastana waxay fiican tahay marka si fiican loo xasho oo maxay ahayd ay ka dheragto xashitaanka hadda waxaan filayaa in xashitaankii u dhameeyey saas ay tahay ayaan maxay ahayd ku daboolayaa bahashii booladii ay ku jirtay kadibna markay soo faxdo ayaynu la waxaynaa haddii ilaha yidhaahdo isku soo noqod wacan asxaabi daqiiqdii miiska ayaan soo saaranay waxaan u kala jaraynaa 2 jeex markii inoo faxday waynaga miiska soo saarnay kadibna 2 jeex ayaan u kala jaray haddana jeex kasta labaan kasii dhigayaa macnaha 4 qaybood oo isleeg inay ii noqoto weeyaan 4 qaybood oo isleeg markaan 4 qaybood oo isleeg ka dhigo waxaan sameynayaa insha allah gobol kasta sidiisa ayaan u lawaxayaa ama aan soo fidinayaa af soomaaliya kolba sidaynu u naqaano markaan sidaa u fidiyo xajmi toosida aan ka dhigo yacni samiik maaha yacni macnaha ma cusla khafiifna maaha si toosida weeyaan saa markaan u wada fidiyo waxaan ku jarjaraynaa kolba wixii aynu haysano qofkii mindi haysta qofkii waxyaabaha wax lagu jarjara haysta anigu bahalka yar baan hayaa marka ku jarjaraya saayra murabacaadka baan doonayaa inuu noqdo saliidina dabka ayay noo saarantao way diiraysaa sidaa markaan u wada jarjaro insha allah saliidda ayaynu ku shiili doonaa maqliga dabka inoo saaran ayaynu ku soo shiili doonaa insha allah saas ayuu inoogu shiilmayaa kackaceennii saasna waan u dubaynaa insha allah saas ayuu noogu soo kackacay maasha allah saas qurux waay hoos hoos isaanu heeraha uga cadaanin hoos hoos in yar baan u quusquusinayaa saliidda sidaas ayaan uga gurayaa insha allah baashaandhadiiba xagga shishe taalo aan ku gurayaa أصحابي قرعين ساس أيوكو صباحي إن شاء الله سفيعا
qurux badan ayuu inoogu soo baxay. Waxaan rajeynayaa in insha allah laga faa'iideysan doono haddii la yiraahdo. Kaliya wax baa inoo harsan inaan in yaroo shukulaatada dhexda ka gelino. Halkaas maasha allah halkan afka ma ka yar daloolinaya, wax kale ma sameynayo. halkaasaan ka daloolinaya, ka yar gelinayaa, dabeetana saas ayaan ugu yar tuujinayaa gudaha. Markaa shukulaatadii aan kaga soo dhiidhiijinayaa sidaas. intaan u baahnaa markuu galo ayay shukulaatadii ku buuxsantay. intii aan uga baahnaa waan ka soo saaray markaas, dabeetana bileerkii taqdiimka ayaan ku gurayaa. asxaabay kackaceeni saas ayuu inoogu dhan yahay maasha allah. si qurux badan ayuu inoogu soo baxay. haddaan gudihiisa eegno, gudihiisana waa kaas shukulaatadii baa dhex taalla. inay gu daatan ka baqanayaa taas shukulaatadii gudaha markaa calool ma lahayn, gudaha calool kuma lahayn. shukulaatadii baa saa ugu dhex ilaashan iyadoo jilicsan dhex taalla maasha allah. waa casariye aad iyo aad u fiican. waxaan rajeynayaa in looga faa'iideyn doono asxaabta, caruurta, maxay ahaydey iyo faamiliyada intaba. waxaan rajeynayaa in ka wada faa'iideysanay insha allah. si fiican aan uga faa'iideysan doono. kulan dambe oo xiiso leh iyo casharo dambe oo cusub insha allah. maca salaama.